muddo 14 bilood aan hogaaminayay in aan dib ugu celiyo taliyihii hore haddana ah taliyaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Mahad Maxamed Salaad. mudane madaxweyne waxaan ugu horeyn kaaga mahad celinayaa kalsoonida aad ii siisay in aan hogaamiyo hay'adda NISA oo aan maamulayay 14 bilood oo ka bilaabanaysay la soo dhaafay oo ka bilaabanaysay 4 Abriil 2024 ilaa 1 Juun 2025. mudane madaxweyne mudada aan xilka hayay waxaan xoogga saarnay tayada shaqada iyo xaqiijinta guulo amni sirdoon iyo diblomaasiyadeed oo wax ku ool ah kuwaas oo ay ka mid yihiin sugidda amniga caasimadda. runtii waa la wada soconaa in bartilmaameed ay u tahay cadowga khawaarijta in ay nabadgelyo darro iyo fawdo ay ka sameeyaan dadkan ay ku gumaadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda ah halkaas oo ah saldhigga dawladda. ilaa waxaan isleeyahay August 2024 muddo laga joogo waa hor istaagnay kamana dhicin waxyaabo qaraxyo waaweyn miinooyinka gaadiidka complex attack assassinationkii waxaasoo dhan si xoog badan ayaa meesha uga saarnay oo waxaan ku faraxsanahay saraakiisha halkan fadhisa in ay yihiin akhyaartii rag iyo dumarba gacan ka geysta arrinkaas oo aanan habeen naseexan iyagoo si wada jira gudahoodan u wada shaqeynaya ayaga iyo hay'adaha kale sida booliiska booliiska militaariyada gobolka Banaadir dawladda qaybaheeda kala duwan wasaaradaha shacabka guud ahaan si dhow ula shaqeynaya. waxaan xasuustaa intii aan xilka haynay in saraakiisha hay'adan iyo saraakiisha kale ee ku howlan howlaha ammaanka ay yiraaday waqtiga ay guryahooda ama caruurtooda ama reerahooda ay aadaan oo ay seexdaan oo ay nastaan oo har iyo habeen madaxa isku jireen hay'adan marka dadka jooga muruq iyo maskaxba waa shiileen. waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa muddadaan wada shaqeynaynay sida hagar la'aanta ah oo isku duubnida ah oo xilkasnimada ah oo mas'uuliyadda ah oo aad u gudateen waajibaadkiina oo aad dadkiina Soomaaliyeed ee degan guud ahaan dalka qaasatan magaalada Muqdisho aad nabad ugu horseedeen. annaga khawaarijta bartilmaameed aan bartilmaameedsanayno waxa kuuna aheeday sifaynta iyo ciribtirka canaasirta ama basaasiinta ay ku dhaxleeyihiin dawladda bulshada qaasatan hay'adaha amniga. madaxweyne muddadaas waxaa noo suurto gashay inaan shabakado qatar ku ah ammaanka dalka qaasatan tan Muqdisho aan baabinay sidii presentation-ka lagu soo bandhigay dhammaantoodna ay xabsiyada ay ku jiraan. ragaas isaga ah waxay ka howlgalayeen shacabka gudihiisa ganacsatada isbitaalada hay'adaha ammaanka xarumaha dawladda waaweyn wasaaradaha international NGOs-ka sector community ama bulsho iyo hay'ad dawladeed aysan ku dhex jirin lama arko. sababta magaaladu ay nabad u tahana kuwii waxaas fududeynaya ama fududeeya ahay ama sahmiye ahay ama fuliyaha ahay ayaa la wada qabtay. waxaan ku faani karnaa inaan ugu adkaanay gudaha magaalada Muqdisho canaasirta iyo howlgaladiina aan ku joojinay oo kana hor istaagnay howlgaladii ay sida sahlan argagixisadu ugu sameey jirtay. sidoo kale xamar kaliya kuma keenay anaga daafaha magaalada Muqdisho ayaan u fidnay laga bilaabo xamar ilaa afgooy xamar ilaa balcad xamar ilaa marka waa ka howlgalnay waxaan isku daynay inaan isku furno jidadkaas si nabad ah oo qaraxyadii iyo bartilmaameedyadii dadka ay bartilmaameedsanayeen inaan soo koobno intooda badanna meesha ka saarno. waxaa kale aan xoogga saarnay howlgallada bannaanada sida Hiiraan shabeellada dhexe shabeellada hoose oo runtii aan ciidamada NISA ay ka garab dagaalamayeen ciidamada ammaanka dalka sida booliiska iyo militariga iyo macawisleydaba door weyn ay ka qaadatay dagaalkii cadow gurigan ka qayb qaadanay abuuriyaan ka qayb qaadanay ceel axmed ka qayb qaadanay aaday baan ka qayb qaadanay hadda oo ka socdo ceel hareeri iyo aga tardaan ku jirnaa qayb ka nahay. waxaan kale shaqo fiican ka qabanay qabaa'ilka iyo kala celintooda iyo kala hagistooda ama isheega waa tii shabaabku oo muddaba maal gelinaya iska horkeenka dadka dariska ah qabaa'ilka ah taas runtii wax weyn aan ka qabanay. waa la socotaano Hiiraan oo isbaarooyin la mari laa maamulo fara badan ka jireen inaan ka soo shaqeynay soo midaynay
jidkii beledweyne iyo gobollada dhexe isku xiraayay aan soo sifeynay haddana si nabad lagu maro hiiraan oo aanan hadda hal maamul u ka jirin at least inaan magaaladii midaynay magaaladii ay xor tahay si nabad loogu shaqaysto inkastoo aanan hadda aan lahayn arrimihii siyaasadeed oo taagtaagnay boqolkiiba boqol waa la xaliyay laakiin maanta taagtaag iyo tension kama jiro waan ku faraxsanahay marka taas iyadana inay shaqooyin ka qaadad xagga diblomaasiyadda shaqooyin ayaa laga qabtay ha noqoto regionka middle eastiga reer galbeedka iyo dowlado kaleeto fara badan iyo hay'adaha kaleeto caalamiga ah mudane madaxweyne marka waxaan farxadii ah maantay magaaladii iyo nabdoon dalkii oo dagaal khawaariijta lagula jiro qayb weyn ay xagga hogaaminta ah ama cirka ama dhulka ay niisa ka qayb qaadanayso inaan xilkii wareejinayo guulaan adiga rajayna madaxweyne adiguna mahadsan tahay tali adiguna soo dhawow meeshaan waxba kuguma seegana ninka yar waxaan is leeyahay ama ka badan hal sano iyo bilo unbaad moogeeday wax weynoo hadda kaa dambeeyey oo ma jiraan oo waad garan kartaa oo sida hay'adda ay joogto runtii awalna shaqo fiican aad qabatay hadda shaqo fiican la soo qabtay waxaan rajaynayaa shaqo fiican intii inaad sii qaban doonto guulaan idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu